Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo wariyahayga Jibriil Cabdi Maxamed. tababarkan oo mid la xiriiray la jaaqaadka horumarinta ganacsiga ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkadaha ganacsiga ee dalka waxaana soo qaban qaabiyay rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliya oo kaashanaysa macadka ganacsiga ee dibadda ee dalka Hindiya. ugu horeyntii waxaa madasha hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliya Mudane Cabdi Abshir Dhoore ayaa faahfaahiyay ahmiyadda ay aqoonta u leedahay ganacsiga. tababarkan ka dhacay oo runtii aha tababar lagu baranayay ganacsiga caalamiga ah oo runtii ashara fara badan oo wadanka saan u burburay oo la og yahay xubinta kaliya u badbaadinayta ganacsiga haddana la rabo ganacsiga naga inuu tallaabo cusub ku daro meesha uu maanta taagan yahay oo ganacsiga Soomaaliya dadaalka ah ee garab rashadaha in laga baxo oo loo bedelo ganacsi cilmi iyo aqoon ku salaysan oo hadda kadib caalamka meesha maraya la jaan qaadi kara sababta saawiyada ayaa qubradan oo ka yimid runtii jaamacad aad muhiim u ah oo ku taala magaalada New Delhi oo runtii safaaradda Soomaalida ee India ay xoog nagala shaqeysay waqti dheerna runtii laga daba wareegay qaaradda Afrikana dawladii 13aad oo ay yimaadeen ee Soomaaliya nasiib ay u yeelatay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cali Ceenaashe ayaa isaga dhiirigeliyay dadaalada dhanka ganacsiga dalka uu ku tilaabsaday aqoonta xagga ganacsiga waana kii horeeyay noociisa ah ee hadda wadanka ka dhaca runtii wuxuuna inoo ahaa sahan fiican buu inoo ahaa waxaana aaminsanahay in lagu guuleysto tira badan oo gabdhaha tira badan oo wiilal oo dhamaan ganacsiga ku lug leh in aqoon fiican ay maanta ay halkan ka heleen marka gabagabadii barnaamijkeena wasiirka ayaa labadii kelmado xidhida inoo oran doona hadii la haydmo ugu dambeyntii wasiir ku-xigeen Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan ayaa soo gabagabeeyay khudbadda wuxuuna shahaadooyinka doonsiiyay xubnihii ka socday ganacsatada Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay bal hawshan Ilaahay inuu idinku guuleysiyay horena uga sii wado oo aqoonta qaadateen in dadka sii gaarsiiya dadkan aqoon yahanada inoo yimid nimanka professorada iyo safaaradda ninka ka socdana uga mahad celinaynaa rugtana waan uga mahad celinaynaa waxa soo idinka naftiina waa idinka mahad celinaynaa yaani dareenkiina idin siiyay inaad wax faa'iido qaadatiin jimco wanaagsan farxadan waa idin qaybsanay insha Allah salaam alaykum macallimiintii bixinaysa tababarka oo ka soo jeeday dalka Hindiya ayaa la gudoonsiyay dahay dhaqanka dalkeena Soomaaliya munaasabada ayaa ku soo dhamaatay jawigii loogu talagalay Jibriil Cabdi Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed